السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا ما وادين سلامي channel كداون إنسان واسف بيوتي iyo marka la isku soo laabanay hada channelkeena ku cusubtay soo dhawow hada hore inoo la joogtayni mar labaad mar saddexaad inta noqoto waxaan ku leenahay gacmo furan soo dhawow channelkaaga waaye maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago video oo gabdho badan ay soo dhaxeen maxaa la dhahaa timaha zaid inoo gurmaayo timaha jajabayo marka maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay sida waana banaanka uga soo aragteen timaha gurmaayo ama timaha jajabayo ayuu maanta videogeena ku saabsan yahay maanta waxaan rabaa inaan idin isticmaalo saliid oo saliidaasna oo tahay saliid inta badan guryaha ka helno oo meel kasta inoo yeesho oo u baahneen inaad banaanka ka raadisid saliid ahaan ayaa maanta idin wadaa maanta marka waxaan idin la wadaagayaa saliideeni aan idin sheegay videogeena sii guda gala hada channelkeena ku cusub tahay na kiloobin subscribe gambaleelka furo sidii markii video cusub soo dhigno lagu dhaho miskiinka video cusub soo dhigtay please soo daawo marka maanta hada videogeena sii guda galeena guys sida hore idinku sheegay videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay timaha jajabayo ama qofka timihiisa zaid oo gurmaayo timaha jajabowga ama gurminta horta ciladaha keenaysa way badan tahay hadda ka hor waxaa jirto waxa idin la isticmaale oo ahayd shaambo iyo nafaqadeeda videoyada horeeto oo aan soo gelinayay ku jiraan soo daabo waa arkaysaa insha Allah mar kalena video kale waa idin kaga soo sameyn doonaa waa idin kugu soo celiyaa sababtoo ah waa shayga oo aniga mar walba aan isticmaalo oo asaga la'aantiisa wax aan qaban hadaan rabo inaan timahayga dhaqo nafaqadaas iyo shaambadeeda aan ku wada dhaqdo marka taas hore waan ka wada hadalnay tan kaleeto marka madaxa waxa keeni karo horta inta badan marka madaxaaga oo aad tahay qof oo maanta shaambado arko ku dhaqaayo biri nafaqado arko ku dhaqaayo kii maanta iga soo horbaxa isticmaala kan kale ku xijina waxaas waxa dhibka keenayo ayadana way ku jirtaa sababtoo ah marka wixii sidaas iskugu qastid ma ogaan kartid kii oo wax ku taray ama kan wax ku tarin ma kala ogaan kartid ama kan dhibka ku keeno midoo yahayna ma sheegi kartid hal shay laga yaabaa inuu dhib ku keeno oo adigana aad hadid kuligooda dhibka ii wada keeneen waxay ii wada ahaayeen isku wada mid hal cilad aan ka wada dareemay inaad ahayda laga yaabaa marka ugu horeyso isku day timahaaga marka shay isticmaalaysid wax u go'an mar walbeeto oo gooni ku ah oo aad taqaanid inaad isticmaashid hadaa shaygaas marka isticmaashid oo aad ka dareentid wax isbedel ay hayso hadaa cilad ama dhib aad ka dareentidna waa dareemay markaas inuu asig ku keenay ka guur ku kaleeta doono waa intaas la kaliya mahano marka koowaad waa taas tan oo loo baahan yahay inaa madaxaaga hal shay aad u isticmaashid tan kaleeto u dhacna ayadana dhinaca saliida badanaa anaka gabdhaheen hadaan nahay anakoo madaxeena mar walba zaid uga taxadarin oo zaid u ilaalinin oo zaid u fiirinin hadana mar walbeeto waxaa jecelnahay inaysan gurmin inay wax dhib ay inooga imaanin inay mar walba sideeda inoo ahaato waxaas dhan maxaa lagu helahay hadaa markii horeetaba adigiiba gacanta aad ku hayweysay intaasoo dhan mar walbeeta ma taagnaan karto sababtoo ah adiga markii horeeto sii daayay marka hadaa rabtid intaasoo dhan marka horeeto inay ku wada taagnaato ama intaasoo dhan marka horeeto inay meel sax ay ku wada taagnaato marka horeeto ka taxadar sidii intaasoo dhan ay hal mar ay isku wada istaagaan hal meel oo kadibna adigana u dhahdid maasha Allah soo marka tan kaleeto labaad ayadana marka intaasoo dhan timahaagii aad tahay qof ka taxadarayo wiigi horta waxaa loo baahan yahay inaa madaxaaga aad dhaqdid 2 jeer ama hal jeer xitaa wali way fogtaa wiigi waxaa loo baahan yahay inaa dhaqdid 2 jeer ama 3 jeer sababtoo ah timaha oo aad dhehaysid ma dhaqaayi waxaan dhaqayaa wiig hal mar ama 2 wiig kadib hal mar taasna dhib ay ku keentaa taasna dhib badan kaaga imaanaya sababtoo ah timihii wasaqdiya ka badatay wax badan ay xirnaayeen way kululaadeen way dhidideen timihii qasab waay waxay u baahan yihiin inaad nadiifisid marka waa taasaa dhinaci oo dhan oo loo baahan yahay sida idin sheegay timaha mar walbeeto inaad dhaqdid wiigi 2 jeer ama 3 jeer oo nafaqooyin iyo waxyaalo timaha oo ku dadaalayeen aamirisid marka wiigaas mar walba dhaqaysid hadda aan u gudagudano dhinaci marka oo saliideeni ayaan soo gaarnay saliida sida hore idinku sheegay waa saliida guryaha dhan aan ka helno oo easy ay tahay mar walba soo ku helno aniga mar walbeeto marka madaxayga aan ka caajiso oo aad dhaho bariyahan wuxuu ka bilaabo inuu ka gurmo ama inuu ka jabo saliid kala banaanka u maraadsadii waxaan isticmaalaa oo kaliya saliida guriga ii taalo oo cuntada lagu kariyo marna cuntada aan ku karsano marna caadi aan u isticmaalno oo labada dhinac inaan ku isticmaalno loogu talagalay
ha isdhiinaya safa maanta masoo waalida saliid caday madaxa la marsada meena dhii rabtaa marka gay saliidda saliid caday maahan oo arabnayna isticmaalno waxa waaye saliid zaytuunta oo cuntadan lagu karsado oo guryahana caadiga ah u dhigano oo labada noocba aan u isticmaalno marka waatana saliideeni saliid zaytuunta sida u jeedinbo hadeer tan waxa waaye RSY sida u jeedin inta badan marmar way yar tahay inta aan isticmaalo noocan oo RS ah inta badan waxa isticmaala ayadoo inta baaso ka ah ama ayadoo RS tan way yar tahay intaan isticmaalo laakiin inta badan midaas kaleeto oo baasooda ay ku qoran tahay ayaan isticmaalaa marka waatan saliidda marka isticmaalayana maadaama saliidan zaytuun ay tahay oo ayada aad iyo aad ay u fiican tahay waxaan sameeyaa oo aan ku darsadaa kaligeeda inta isticmaala hadana way yar tahay waxaan sameynayaa caagigii ayaan soo qaadanayaa ujeedin caag sidaan oo kale ayaan soo qaadanayaa caagan camal ayaan ku shubanayaa sida dareemaysiin hadda hoos maxaa u fadhiso daawadeydii aan ku isticmaali lahay waaye inkastoo isdhaysiin maxaa waaye waxaan oo hoos u fadhiso marka horeeto inta caagay ku diyaarsadaa sababtoo ah kan maadaama weyn yahay mar walbeeto ma wadwadi kari marka caagan yar aan ku kiskisaystaa hadda waxaan sameynayaa sidii aan u diyaarsado ayaa idin tusayaa marka horeeto caagan hadda haafa igu jiro laakiin xoogo kale ayaan ku dareynaa sidii oo aan u ogaano waxa kale oo kor aan uga sii darsan doono waxay noqdaan labada caagba aan furno okay hadda waa kana waa diyaar waxaan sameynayaa xoogo ayaan ku shubayaa mar walbeetana ma jecel inaan zaid u buuxiyo marka mar walba markaan rabo inaan wax ka isticmaalo wax yar kaliya ayaan ka isticmaalaa okay hadda sida u jeedinbo wax ayaan ku daray caagi haday meesho jooga hadda ma joogo tan marka dhinac ayaan iskaga leexsanaynaa waa kan hadda u baahan tahay hadda sawir ka qaado waana meel walba waa laga helaa tan supermarket ha noqoto ama ha noqoto dukaamanka raashinka waa easy sida ku heshid meel walba way taala marka hadda tan ayaan waxaan sii aadaynaa dhinaceedii sidii oo wixii kale u dhiman aan ugu darsan lahay okay tan markay sidaan ay tahay oo hadda haafkan camal caageenii aan ku shubtay waxaan soo qaadanayaa mar walbeeto waxaan jeclahay inaan isticmaalo kaniinigan waxaa waaye vitamin E waaye vitamin E gan waxaa loogu talgalay timaha iyo jirkaaga labadooda meesha cilad ka sheeganaysid inaa u isticmaashid marka kaniinigan laba xalba waa u isticmaali kartaa hadaa rabtid waa marin kartaa madaxa hadaa rabtidna waa laqaysaa inaa laqdidna waa loogu talgalay inaa madaxa u isticmaashidna waa loogu talgalay kaniinkan daraad gabdhaha waxay soo dhaheen intee ka helnaa intee kasoo gadatay waxaa ka helaysaa farmasiyaasha oo dhan waa easy sida ku heshid inta badan inkastoo midkan boxkan uu adag yahay sida ku heshid kan kaleeto oo la marsado ayaa fudud sida zaidka loogu helo oo siiga ah kan naftirkiisa waa helay laakiin waxaa laga yaabaa farmasiga koowaad ama labaad hadaa ka heshid kan saddexaad inaad ka heshid marka waa kana kan fitamiinka oo inta badan aan isticmaalo aniga sawir ka qaado sida hadhootay sida u heli lahayd easy kugu noqoto marka hadda waxaan sameynaynaa kaniinigii ayaan soo bixinaynaa kaniiniga ayaan waxaan rabnaa inaan inta ku dhex darsano marka sida hore kugu sheegay adiga labada nooca jeceshahay waa sameyn kartaa ama hadaa rabtid inaa laqdid laq hadaa kaleetana inta ku rido waa isku mid marka kaniinigeeni ayaa dilaacsanaynaa waa diyaar waa kana gudihiisi sidaan ayuu u yaalaa marka waxaan sameynayaa marka sidaan aan u diyaarsanay afka horeeto ayaan wax yar ka jareynaa afka horeeto ayaan intaas ka jarnay kadib waxaan sameynaynaa saliideeni ayaan soo qaadanaynaa saliida oo ku jirto gudaha kumiir sida u jeedin waa kaas saliida gudaha ku jirtay dhan ayaan gudaha ku miiranay okay hadda waa qaleel markaas kaniiniga saliida gudaha ugu jirtay aan ku miiranay ma tuurayi qolofkan waxaan sameynayaa gudaha ugu ridayaa sidaas marka ugu ridto waxaan sameynayaa oo ku dhex xirayaa
kama bixiyo sida ujeediin kuwii hore aanu isticmaalayo dhan waa kuwaana way ku wada jiraan caaga mar walbeeto ma ka bixiyey marka inta xabo oo kaniini oo aad jeceshahay inaad ku dhex ridatid oo aad ku isticmaashid waa ku isticmaali kartaa in xisaab u go-an ma lahan inta adi aad jeceshahay oo aad dhehaysid intaan waa ku isticmaali karaa waa ku ridan kartaa waa diyaar waa kana hadda saliidaadii waa diyaar markaa madaxa marisid isbedel badanaa ka dareena insha allah timaha gurniinta badan way ka istaajine habeenkii marso subaxi sida iskaga dhaqdid waana inta badan ku dadaal madaxaaga mar walba inuusan qaleel noqonin oo saliida aa ugu roonatid sida hadhooti adigana isbedel badan aa uga dareentid insha allah marka guys waa kan maanta saliidi aa idinku talgalay inaad timaha qofkii zaa'idka uga gurmaayo ama qofkii ka jajabaayo iyo gabdhihii isoo weydiinayayba inaad isticmaashiin sida hore idinku sheegayna kaniiniga haddaa rabtid oo saliid inaad ku darsanin oo caadi ah u laqdid kaniinigan caadigiisana zaa'id uu ku saacideynaya asagana jirkana waa loogu talgalay skinka iyo sidoo kale tinta ayaa loogu talgalay skinkaagana wax badan u taraya timahaagana sidoo kale jajabka iyo waxaas uu ka istaajinaya marka insha Allah tijaabi kaniinigan haddaa saliidan noocan aad rabid any saliid oo aad rabtid inaad isticmaashid oo adiga aad jeceshahay inaad isticmaashid waa ku darsan kartaa qasab ma aha saliidan oo kaliya inaad ku darsatid aniga waa tijaabiye oo tan ah weena ila fiicnaatay sidaas daraadeed ayaa mar walba isticmaala adiga nooca jeceshahay inaad ku darsatid ku darso haddaad jecleen inaad saliid ku darsatidna qaleelkiisa isticmaal so guys marka maanta waa kana videogeeni intaanu ku egyahay waxaan rajaynayaa idinkoo dhan inaad wax badan ka faa'iidi doontiin oo insha Allah oo idin wada saacideyn doono hadda videogeeni maanta inta kusoo gabagabeynayna hadda channelkeena ku cusub tahayna iloobi subscribe soo kala gambaleelka furo sidii marka video cusub aan soo dhigno oo nogula socotid insha Allah hadii waa inoo video xigo iyo anigoo wax kale mar kale cusub idin wado waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh